بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن أو نكسن داوديال كسو دوادا برامج كان غاركا وينو قلت لقلني إنه كسو دوينو عبد الناصر حسن صوفي أو كميد ترتمياشي كقيب قلي ترتنكي كدا عدلكا تنزانيا كاوي كقيب قلان صدني أفر دولة أفريكا عبد الناصر يا برامج كمرتين وهرين عبد الناصر kusoo dhawow barnaamijkan gaarka ah aynu ugu talagalnay inaynu maanta aynu kugu marti qaadnay si aynu bal aad wax badan oo tartankaasi iyo qaybihii aad nooga sheegto horeen kusoo dhawow barnaamijka waan ku dhawahay aad iyo aad u mahadsan tahay adigu iyo ragga kale hawsha kula wado aad u mahadsantihiin waan dhawahay cabdinaasir dabcan waxaad qayb ka noqotay dadkii ka qayb galay tartanka isaga ah adigoo matalaya dalka Soomaaliya intaan aan faahfaahinta tartanka iyo aan aadin ugu horeyn bal taariikhdaada oo kooban magacaygu waa Cabdinaasir Xasan Suufi waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho gaar ahaan deegaan weynaha Madiina ilaa iyo hadda meesha ayaan ku noolahay meesha ayaan ku barbaaray alxamdulillah shukrankaga iyo heerkaaga waxbarashada xagga soo qaadatay dugsi quraan ilaa iyo 3 madraso kala duwan ayaa soo maray madrasadii ugu horeysay waxay ahayd madrasada ku taalo xaafadda Madiina waa meeshii asaaska aan ku soo bilaabay farbarka macalinkaas waxa la jiray macallin Nuux Allah u naxariisto duwa dhintay ardaydiisa waxaan ka mid ahaa ardaydiisa dugsigii xigay wuxuu ahaa madraso marka ayuuna xaafadda ku taalay waa dugsigii ugu horeeyay marka oo tajwiid ah aan ku bilaabo waa dugsigii quraanka aan ku dhameeyay ka saddexaad wuxuu ahaa madrasadii aan quraanka ku xifdiyay ma sha Allah Cabdinaasir dabcan waxaad qayb ka noqotay tartankan caalami ah oo ka dhacay dalka dibadiisa adigoo Soomaaliya matalay waliba waxaad nasiib u yeelatay inaad kaalinta labaad gasho alxamdulillah markii kugu horeeyay oo tartan caalami ah ka qayb gashay mise tartamaha kale oo aad ka qayb gasho jira may tartamo kale waa jiraan tartankii ugu horeeyay dibadda ah wuxuu ahaa waxaan u tartamayay dalka Soomaaliya wuxuu ka dhacay tartankana Djibouti kii labaad wuxuu ahaa dalka Sacuudiga musaabaqatu al-Malik Abdulaziz ad-Duwaliya kan wuxuu ahaa kii saddexaad aan ka qayb galay marka maadaama ay dhowr tartan oo adoo dalka Soomaaliya matalay aad ka qayb gashay maxay kaaga dhigneed markii la weeri tartanaad ka qayb galaysaa maxaa dareentay wala aadan u farxay waxa waaye waxaan ku farxay inaan matalayo calanka Soomaaliya iyo qof walba oo sheeganaya magac Soomaaliya meel walba joogo haddana walwalka ugu weyn aan haysto wuxuu ahaa inaan mas'uuliyad iga saarneed sharafka Soomaaliya Soomaalida sharafka leedahay mas'uuliyad iga saarneed inaan ka soo bixi waayo ayaan macnaha aad ugu walwalsanaa falillahi alxamdu ugu dambeyn waxay noqotay in mas'uuliyadii lay saaray aan ka soo baxay alxamdulillah tartankii aad kaga qayb gashay dalka Sacuudiga Malik Sacuudi goorma ayuu ahaa tartankaasna xageed baa ka gashay tartankii la qabtay tartankaas waqtigiisa wuxuu ahaa 2019 waxaa imtixaankiisa ugu horeeyay naga qaaday wasaaradda awqaafta oo marka iyada ayaa na sharaxday oo musaabaqada inoo dirtay waxa weeyaan musaabaqadana saas ayaa ugu qayb galay marka kala sareynta maadaama Soomaaliya ama talayso oo kale kaalmahee yaad ka soo gashay ahaantaada musaabaqadaasi maanan heleelin kaalmaha ugu horeeya saddexda ah laakiin min alfaiziin tobanka ugu horeysan ku jiray alxamdulillah ma sha Allah adiga tartanka ka dhacay Djibouti oo kale isna taariikhdiisa goormay ahayd sidoo kale kaalinteena ka gashay isla sanadkaas ayuu ahaa 2019 isna waxa waaye waxaana sharaxday wasaaradda awqaafta alxamdulillah waxa weeyaan isna waxa ka qayb galay waxa ka galay kaalinta saddexaad alxamdulillah adiga dabcan hadda waxaad ka qayb gashay tartanka ka dhacay dalka Tanzania oo aad kaalinta labaad ka gashay Soomaaliya ilaa 3 ruux ayaa kaga qayb galay ruux walbana waxa laga yaabaa riwaayad gaar iyo qaab gaar ku tartamay ka shakhsi ahaantaada maxaad ku tartamaysaa adiga anu saddex tartan way kala duwanaayeen riwaayaadka aan ku tartamayay
tii Djibouti riwaayatu Xafs can Caasim aan ku tartamay kadaalika tii Sacuudiga saas oo kale laakiin tan un bay ahayd inaan ku tartamay riwaayat Warash can Naafic oo markaa ka mid ah riwaayada Warash qiraa'aadka ama riwaayaadka ugu adag markii loo eego riwaayaadka kale ama qiraa'aadka kale aad iyo aad alxamdulilah marka maxay kaaga dhigneed maadaama dad kala duwan ay kasoo qayb galeen tartanka oo muxuu ahaa adi ahaan tartamadii hore aad geli jirtay iyo kan muxuu kaaga duwanaa wallahi wax badan oo igaga duwanaa sababtoo ah waxaan dareemayay mas-uuliyad aad u weyn haddana waxaan ku tartamayay riwaayad aan weligeyga aanan dad hortooda aan la fadhiisano aan weligeyga dad hortooda aan ka akhrin taasna waxaa waaye waxay i siisay inaan aad u sii dadaalo oo aan isku dayo xitaa haddaynan saddexda kaalmood aan ka mid noqon dadka hortooda inaan wacdaraan ka dhigo falilahi alxamdu ugu dambeyn waxay noqotay inaan ku soo baxay kaalintii labaad waa tartankaygii ugu horeeyey oo riwaayad waddankeen laga baran oo aan laga aqoon aan ku tartamo haddana waxaa suurtagal ii noqotay inaan musaabiqiintii saddexda ahayd marka kugu horeysan inaad ku guuleysatay oo kaalintii labaad aan ku helay alxamdulilah taasaa aad ii farxa gelisay xaqiiqatan waan wax lagu farxo intii aad ku sugneed dalkaas Tanzania oo tartanka aad ka qayb galaysay waxyaabihii aadka kuu soo jiitay ku farax geliyey maxaa ka mid ahaa wallahi meesha waxaa iskugu yimid dad badan oo kala duwan aanan isku luuqad ahayn isku midab ahayn kala duwan waxaa aad ii farxad gelisay walaalo khayr wanaag jecel oo maasha allah waqti iska aad u furfuranoo iska rawaan macna mar walba inay kula hadlaan oo kula sheekaystaan iyo raggii kale musaabaqada ku howlnaa sida wanaagsan oo ay inoo soo dhaweeyeen tacaamulka ee ku dhehneed haddii ay noqon lahayd cuntadii iyo xagga jiifka iyo waxyaabihii kale oo waxaa waa aad macnaha inoogu dadaaleen aad iyo aad daawadayaal weli waxaan bartamaha kaga jirnaa waraysiga aynu la yeelanayna Cabdinaasir oo ka mid ahaa dadkii ka qayb galay tartankii ka dhacay dalka Tanzania isla markaana guul weyn ka soo hoyay isagoo Soomaaliya matalay Cabdinaasir dabcan tartankan inaad ka qayb gasho yani yaa kuu suurageliyay wallahi tartankani waxaa suurtagelintiisa waxaa awaal weyn ku leh muasaso oo dacawi ah oo khayrka ka shaqeyso oo markaa awqaaftana waxaa waaye lug weyn ku leh ayadoo ayaa micnaash inoo suurtagelisay inaan musaabaqada aan ka qayb galno intii jeer oo aad ka qayb gashana dabcan iyagaa kuu suuragelinaya ka qaybgalkeeda may tanoo keliya ayagu micnaha qaybaha kale laakiin waxaa oo musaabaqada inoo suurtagelin jirtay wasaaradda awqaafta aad iyo aad Cabdinaasir dabcan maadaama ruux qaari aad tahay oo Soomaaliya matalaya markii ugu horreysay aad riwaayad Warash can Naafic kusoo tartantay bal aniga iyo daawadayaasha waxaan rabnaa inaan maqashiiso riwaayadda ayada ku akhrinay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين
إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهنا آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. جزاك الله خير. aad iyo aad u mahadsan yahay daawadayaal. waxaan isla soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena gaarka ahaa ee uu martida ku ahaa Cabdinaasir Xasan Suufi oo ka qayb galay tartanka ka dhacay dalkaasi Tanzania isla markaana kaalinta labaad ka galay. waa guul weyn oo ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaan runtii aad iyo aad ugu riyaaqeen. ugu dambeyntii Cabdinaasir, maadaama aad qaari da'yar ah tahay oo intaasoo jeerna aad Soomaaliya matashay, guulo waaweyn aad Soomaaliya gaarsiisay, waa maxay hiigsigaaga iyo mustaqbalka dhow waxyaabaha aad rajaynaysa inaad gaarto? mustaqbalka waxyaabaha hadda aan u rajaynayo waa inaan noqdaa mid quraanka si fiican u sugay oo meeshii looga talgalay xuruuftii axkaamtii iyo hadday noqon lahayd wax walba meesheeda dhigay. oo mustaqbalkii waxay ii qorshaysan insha Allah qiraa'aadka inaan sugo oo muqri aan ku noqdo insha Allah xagga quraanka inaan u shaqeeyo. aad iyo aad marka sanooyinka soo aad waxaan rajaynaysaa inaad dhowr riwaayado kala duwan inaad Soomaaliya ku matasho hadduu ilaahay insha Allah qiraa'aadkooda. aad iyo aad insha Allah. aad iyo aad u mahadsan yahay. kaas wuxuu ahaa Cabdinaasir Xasan Suufi oo barnaamijkan gaarka ah marti inoogu ahaa isla markaana stuudiyaha nagu soo booqday. Cabdinaasir mustaqbal ayaan u rajaynaynaa waana kaga mahad celinaynaa. guud ahaan Soomaaliya oo idilna waxaan rajaynaynaa ruux walba Soomaali ahna Cabdinaasir inuu soo duceyn doono si Ilaahay mustaqbalkiisa higsigiisa Ilaahay u gaarsiiyo. barnaamijka waxaa idil socodsiinay anigoo ah walaalkiin Cali Maxamed Jaale. intaan barnaamijkan mid lamid ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa si ay nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.